waddanka Mareykanka ayaa akhbaar aad u farxad badan idinka sida warkaasoo u fiican qaxootiyada ku nool caalamka. Fadlan qadar yar adeega bulshada waxaan rabaa inaan idinka codsado inaad muuqaalkan share garaysiin, like saara, subscribe saaro, gambaleelka furo. Dad badan inaa u gaar ayaa rabaa like-ta nagu caawiya. sidoo kale dhalinyarada ay ila shaqeyso dhalinyarada soo muuqaalka share garayaan marka dhammaan halii garabsaa waxaan rajeynayaa 24 saac gudahooda muuqaalka 24 saac gaar waxaan rabaa inaa 5,000 oo key ina gaaro hadda 3,000 iyo wax le mareynaa marka halaas lidkaan gaarsiin doontii nin walba culays iska saaro nagu dhiirigeliya insha Allah anina waan iga farxin doonaa mar walba muuqaal ni xiisi geliya ayaan soo dhigi doonaa insha Allah qaybta comment iyo ra'yiina iyo wixii su'aalaha nagu soo reebay insha Allah waan igu soo jawaabana sidoo dhaqsiya badan aan ku bilaabo qodobka ah waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqday gaar ahaan madaxweynaha Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in uu qaadan doono sanadka soo socdo 2023 wuxuu qaadan doonaa qaxooti gaaraya 125,000 waa tiro aad u fara badan tiradaas oo loo kala qaybiyay qaaradaha caalamka ku nool ayaa loo kala qaybiyay marka qaarad walba inta laga qaaday ayaan ku bilaabi doonaa insha Allah iyo warar kale oo xiiso leh ayaad ka boodi doontiin muuqaalkan fadlan waxaan iga codsanaynaa inaad muuqaalka dhamaystirtid markaad dhamaystirtid share ku qabo dad badan u sheegay WhatsApp nagu sheegay Facebook-gaada forward group-yada ku jirto oo Facebook dadka oo rajada buufiska qabaan iyo waxyaabo akhbaar rabaan u sheegay fursadan si ay u faa'iideystaan aan ku bilaabo 125,000 oo waddanka Mareykanka uu balqaaday inuu sanadkan horteen inuu qaado sanadka soo socda 2023 waddanka koowaad oo cadad u badan ah waa waddanka Afrika waxaa laga qaadi doonaa 40,000 oo qofood ayaa laga qaadi doonaa 40,000 oo qofood sidoo kale waxaa ku xigta East Asia waxaa laga qaadi doonaa 15,000 sidoo kale Latin America idana 15,000 oo qofood ayaa laga qaadi doonaa sidoo kale European and Central Asian waa 15,000 oo qof sidoo kale Near East iyo South Asia idana 35,000 ayaa laga qaadi doonaa marka intaas ayaa sidoo kale Latin America waa soo sheey dhamaan Latin America idana waxaa laga qaadi doonaa Latin America waxaa laga qaadi doonaa idana 15,000 oo qofood ayaa laga total marka isku geeyo tiradaas waa cadadaas waxay noqonaysaa 125,000 waddan walbo caadi wuxuu leeyahay sida waddanka Mareykanka caadi wuxuu leeyahay iyo wadamada kale oo qaxootiyada arursadaan sanadka soo xiga markuu sanad dhamaanay sanad kale budgetkiisa si diyaarsadaan inta qofood u baahan yihiin qaalayaan waxaas oo dhan way qorsheynayaan marka dadka hadda 125,000 waa tiro aad farba sida Afrika marka 40,000 la qaadayo 40,000 waxa ku jiraan sidoo kale dad waxa jiraan xagga jooga Mareykanka oo dad u soo dooday sida amal xaaskiga ayaa dibad jirta qaxootiyada ku nool meel hebel ku nool ama fiis ahaan u xareey qaabka dood ninkeyga maqan ilmaheyga iga maqan dad noocaas ku jiraan tiradaas iyo dad soo caadi sida aadi wuxuu badnaan doonaa qaxootiyada ku nool qaxootiyada Afrika ku nool Afrika qaxootiyo badan wadamo badan ayaa jiraan oo qaxooti martigeliyay wadamadaas hadan waxay fiirin doonaan baahidooda iyo darnaashahooda ayay fiirin doonaan sidaas ayaa u kala xulan doonaa fadlan waxaan iga codsanayaa si sharaf leh waxaan iga codsanaynaa muuqaal kala bar ayaa marinaa mar kale waxaan iga xasuusinaynaa inaad like-ta noo taabatid sidoo kale subscribe aad saartid marka muuqaalka qaybta share tag markaad subscribe noo saartid gambaleelka furo si aad u noqoto qofka u horeeya maalinlaha muuqaaladeena soo gaaro sidoo kale qaybta share taabo riix macnaha waxa u dirtaa asxaabtaada ula wadaag muuqaalka inuu dad badan gaaro ayaa rabnaa insha Allah waana maasantiin marka sidaas hadda ni sheegay waddanka Mareykanka waa waddanka u baaxad weyn caalamka oo quwad u leh awood leh wax walba leh dhaqaale leh dhaqaalahaas marka la fiiriyo wadamada kale la barbar dhigo waa waddanka u dhaqaalaha badan marka qaxootiyo badan ayaa horumar ku gaaray oo shaqooyin fara badan ayaa yaalo company badan ayaa meesha u baahan in la shaqeeyo sidoo kale shaqooyin kale oo durdur ayaa taalo marka meesha lacagta u badan caalamka laga sameeyo labada wadan oo hadda marka dadkii ay nasiibkooda u yeesho oo aadaan waa oo ninka Ilaahay nasiib u daro waa waddanka Mareykanka waxaana soo raaca waddanka Canada ayaa soo raaca waddanka Mareykanka ayaa u horeeyo waxaana soo raaca Canada marka wadamadan waxay deeq u yihiin macnaha shaqooyinka dadka shaqaysanaya ay rabaan ay waxay qaxootiyada u qaadanayaanba waddankooda dhaqaale inuu si kubciyo rabaan dadku inuu farabato nin walba shaqaysto company ayaa hadda dad oo ka shaqeey laalaasan shakhsiga company loo leeyahay marka sidaas ayaa marka wadamadan qaxootiyada u dadbureynayaan marka 125,000 waa tiradaas horaan waxa la jiray markii ahaan jiray Donald Trump
qaxootiyada sida hada caalamka u yareeyay uu xadiday marka hadda insha Allah Biden waa wixii dabada ka fiidaya marka muuqaal gabadh ayaa maraya like ta saar hadii ha ilmaamtay haddana subscribe hadii horaan noo saar muuqaalka noo sheegay waana